nolosheena waxay bilaabatay annagoon is aqoonin, waxaan ku dhalanay meelo kala fog, weligan ismaanan arkin. balse awoodda Allah ayaa adduunyada nagu kulansiiyay. Aragtideeda waa ku faraxday, anigana sidoo kale aad baan ugu farxay. ka helitaan iyo jacayl fara badan kadib waxaan go'aan ku gaarnay inaan isguursano oo aan mid noqonaa. haddaba waxaa muhiim ah nolosha dhabta ah micnaheeda inaan wada garano guurka kadib waxa imaan kara. waxaan u baahanahay waa inuusan fashilmin guurkeena iyo ballanta aan Allah la galnay oo ah inaan isku baari noqonaa. guurka maalinka uu dhacayo dadka way faraxsan yihiin, balse aniga waa murugeysanahay oo waxaa la isaaray mas-uuliyad aad u weyn oo ah qof aniga nafsadeyda oo kale leh inaan u ahay u adeega shaqaale. waxaa waajib igu ah inaan meel saaraa waxaad xiran lahayd, waxaad cuni lahayd iyo wax walba oo farxadaada ku xiran tahay. taasna aad ayay u adag tahay, waana midda inta badan ay ku fashilmaan ragga qaar. waxaa ii furan hal wado oo ah inaan kaa dhigtaa xigaal sida indhahayga oo kale ah oo aan wax ku arko, midaas oo ka dhigan inaan ahay ruux aan la'aanta shaqayn karin, sababtoo ah indho la'aan lama shaqayn karo. waxaan u baahannahay 4 waxyaabood inaan helnaa: 1 sabar, 2 go'aan adag, 3 naxariis, 4 xal wax walba inaan isla xalinaa. 1 sabar waa inaan ku sabraa marka aad dhibaataysan tahay, sida marka aad uurka leedahay, marka aad xanaaqsan tahay. adiga waa inaad sabartaa xilliyada aan murugeysanahay ama xanaaqsanahay si dhexdeena uusan u imaanin khilaaf. 2 go'aan waa in uu go'aankeenu ahaado mid aanan ku burbureynin si fudud. go'aankeenu wuxuu noqon doonaa inaan kala tegin ilaa geerida dhimashada na kala geysamo. 3 naxariis waa inaan isku naxariisana si Allah uu noogu naxariisto, khaasatan marka aad xanuunsan tahay. marka aan labadeena xaaladaha dhiban ku jirno waa inaan isdareemsiinaa naxariista, taasoo ka dhigan jacayl aad u weyn inaan isku qabno. 4 xal waa inaan xalinaa wax walba oo xumaan ah oo dhexdeena ama familkeena soo dhexgalo si wadajir ahaan caqli ku dheehan yahay, si aan u ilaalino mustaqbalka ifayo. waxaa maalinkaas guurkeena ah kuu ballan qaadayaa inaan kuu noqonayo sidii qayb jirkaaga ka mid ah oo aan kaa maarmin, adigana aadan ka maarmi karin. nolosheena waxaa muhiim inoo ah farxad iyo inaan isku qanacsannahay. waxaa kaloo muhiim ah waalidkana dhali ee intaana soo gaarsiiyey waa inaan ku dadaalnaa farxadooda oo daqiiqad walba madaxa ay noo saarnaadaan si aan u helno caruur baari ah. hooyaday waa sida hooyada oo kale, waalidka waa inaan u noqonaa sida diinta islaamka ee na fartay, waana hubaa inaan ka soo baxayno oo aanan dayici doonin insha Allah. dhabtii hadafka nolosha aad ka leedahay waa kugu garab istaagayaa si aad u soo taabato meesha aad hiigsanaysid. anigana ma dhaqaaqi karo la'aanta, waa inaan gacmaha isqabsanaa si aan u jebino derbiga ku xeendaaban wadada mustaqbalkeena. waxaa ii muuqda nolol iftiimaysa iyo guri aad u qurux badan oo hooyo aad u qurux badan dhex joogto iyo aabe aad bashaash u ah, kuwaas oo gacmaha ka hayo caruur indhahaaga ay la dhacayaan, afkooda aanan ka soo bixinin hadal xumaan ah ilaa wanaag maahane. subaxii salaada ayaan kugu kicin doonaa, markaan tukanana waxaan u cararayaa shaqada anigoon hamigaygu yahay inaan familkayga taageero. inta aan shaqada ku jira haddii aan helo fursad yar waan ku soo wici doonaa anigoo raba inaan xaaladda gurigayga ogaado. markii aan shaqada ka imaado waa inaan ku saacidaa sidii wixii loo baahan yahay aan u dhammaystiro. muddo kadib caruurta quruxda badan ee aan wada dhalnay ee dhinaca adiga kaaga eg dhinacna aniga iiga eg ayaa u ballan qaadi doonaa si wadajira inaan tarbiyadooda iyo farxadooda ka shaqeynaa labadeena. qofkii fursad u helaa caruurtaas inuu ku dadaalo si barita aan u helnaa kuwa aan harsano. waan jeclaan lahaa inaan arko Soomaali sidaan sameynayso. walaalo wadaag wanaaga bulshadaada.